aabahay aan masaajidka u soo raaci jiray wuxuu isku dayi jiray ilaahay u naxariistay inuu salaada ibaro marka gacantii soo qaban jiray masaajidka wax dhalinyaro oo ku tukan jiray ma jiro saddex saf oo odayaal waaweyna oo gaboobay baa ku tukan jiray masaajidada bal isbeddelka hadday maantana الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم دمان علماء قيمة بدن مدشن كسوغان أرددا يوالدين تا دوردن كسوقيب كشي بنانت كي أي نمان تشوغلو صحافة إيو لنيردا مساجد كشقين يساد مانتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وجهرين وحن هل كان كبر قاعدين يا للي يرى قيمها بدن حبلا يينا سجود شراء مدة فصحة وقت جودي قيمها الهاجلية أقونتها يو علم الدينتا waxaan halkan uga mahad celinayaa culimadii iyo macallimiintii dadaalka badan gelisay iyo waalidiintii tacabka badan ubadkaa geliyey ilaahay baynu u mahadnaqaynaa subxaanahu wa tacaala oo nabad ina siiyey deganaansho inagu manaystay intaa kadib aqoontu waa waxa ugu qiimaha badan ee aadanuhu isku dhaafo aqoonta diintuna waa asalka aqoonta inuu qofku garto halkuu ka yimi iyo wuxuu dunida u yimi iyo halkuu ku dambaynayo waa saddexda su'aalood ee aqoonta diinteennu ka jawaabto waxaa aqoon bini aadamku haya saddexdaa kama jawaabaan hadday tahay aqoon diineed iyo hadday tahay aqoon maadiya isku darbo oo aqoonta waa waxa maanta bini aadamku ifkana uu ku kala sarreeyo aakhirana uu ku kala sarreynayo marka inaynu aqoonta xoog saaro waa lama huraan dhallinyaradan qiimaha badan fursad wanaagsan baad haysataa oo dadka iyaga waaweyne aananu helin annagu fursad qiimo badan annagu markaanu dhallinyarada ahayn waan xasuustaayo aabahay aan masaajidka u soo raaci jiray wuxuu isku dayi jiray ilaahay u naxariistay inuu salaada ibaro marka gacantii soo qaban jiray masaajidka wax dhalinyaro oo ku tukan jiray ma jiro saddex saf oo odayaal waaweyna oo gaboobay baa ku tukan jiray masaajidada bal isbeddelka hadday maantana meel walba dhallinyaradii ayaa buuxisay masaajidadii waa nimco weyn isbeddelka bulshadeenna ku dhacay wax laga sheekayn kara maaha waxaan hargeysa joogay 1981kii waxaan dugsiga sare ka bilaabay halkaa jaamacadda hargeysa tahay oo iskuul boorden oo la yaa Ferris Fly ama kowda luuliyo waxaan garanayaa marka maalinta jimca barkhadlaha la yiraahdo culimadooda way garanaysaa aw barkhadla la tagi jiray sida aqoonadu ahay halkaas hargeysiba qaban jirtay marka baabuurna waa la lugayn jiray dadka dhibaato ku qabay soo noqodkiyo silaca awowgay ilaahay ya awowgay sheekh Yuusuf al-Kownayno bay dadku oran jireen oo ilaahay ku bari jireen waxaanu anagu soo joognay iyadoo sheekh Saxaaq cid kastoo ku abtirsataa sanadkii ay martagto reer waliba iyo jilib waliba martago oo xoolo geeyo oo maracas laga soo qaato gacanta lagu xidho oo qofka tagi waay aaminsan yahay inuu nasabadii iyo isirkii reer sheekh Saxaaq inuu ka baxay oo dadku markay ducaynayaan ilaahay sheekh Saxaaqow bay oran jireen
maantana isbeddelka caqiidada dhacay qof waliba ilaahay si wanaagsan buu garanaya cidna uma shariik yeelo waa guul weyn oo culimadeennu xaqiijisay waa guul weyn oo culimadeennu xaqiijisay aniga iyo axmed muumin saad iyo dee culimada kama mid yihiine dadka culimada jecel baanu nahay siyaasiyiinta suubani culimada way jecel yihiin madax dhaqameedka suubanna way jecel yihiin aqoon-yahanka suubanna way jecel yihiin cilmigu waa bad dhallinyarada waxaan u sheegayaa cilmigu waa bad bilaa dekada ma dhammaado ama diin ha noqdo ama maadi ma dhammaado ilaahay uunbaa subxaanahu wa tacaala alcaliimu ilaahay uunbaa